Professor Qaasim Sheekh Ibraahim Tube oo ka mid ah hogaanada sarsare ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maanta si rasmi ah xisbigaasi uga soo digarrogtay isagoo uu ku biiray xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID oo halkaasi ku soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbigaasi Engineer Faysal Cali Waraabe iyo sidoo kale mas'uuliyiinta sarsare ee xisbigaasi. haddaba Professor Qaasim Sheekh Ibraahim Tube oo ka mid ah hogaanada sarsare ee xisbiga mucaaradka ee wadani iminkii haatana ku soo digarrogtay kuna soo biiray xisbiga mucaaradka ee UCID ayaa waxa uu sheegay sababihii keenay inuu xisbigaasi ka yimaado isla marantana uu ku soo biro isla xisbi kale oo isaguna mucaarida kana mid ah xisbiyada qaranka isagoona uu professorku halkaasi ka sheegay mubda'aasi uu kaga soo digarrogtay xisbigaasi isla marantana uu xisbigan inuu dib ka sheegi doono kulay waxaan maanta halkan isku soo taagay inaan cadeeyo anigoo ahaa xisbiga wadani kana tirsanaa hoggaanka sare xisbiga aan ka soo wareegay oo aan ka tagay wadani kuna biiray xisbiga UCID taasi waa caddayn waxaan yar raacin doonaa kulley xaflad wanaagsan baan leenahay oo aan si fiican u agaasinay sabtida ayaan haddii la yidhaahdo faahfaahinteeda iyo waxa meesha looga dhaqaaqay wadani uu fadhiidka ku noqday kulley waxyaalaan yar sheegi doonaa laakiin mid baan yar raacinayaa oo igu soo yar dhacday taasi waxa weeye madaxweynuhu muuse dee waa madaxweynaheenni arrimaha uu isagu go'aankeyga leeyahay inuu wakhtigayga nagaga lumiyo maaha muuse waxaan ismoodi jiray inuu aad u dhiirado haddii uu maalin walba yidhaa wadani baa diidan dee wadani dalka uma annaan doorana waxaanu u dooranay madaxweyne adaan ku dooranay sidoo kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID Engineer Faysal Cali Waraabe ayaa waxa uu sheegay in professorka loo qaban doono xaflad maamuus iyo meeqaam sare oo lagu soo dhaweeyay isla marantana uu xisbigu u qaban doono halkaana uu ka sheegi doono sababaha keenay inuu xisbigaasi ka soo digarrogto ku soo digarrogto xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID. Wasalaatu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ilaahay mahad subhanahu wa ta'ala ilaahay kariim mahad leh. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inuu Professor Qaasim Sheekh Ibraahim Tube oo isku ahaan kala sahan jirnay inuu xisbiga ku soo biiro waxaanu jecelahay inaan xisbigan wixii loo aasaasay markii hore ba ahayd inuu xisbiga noqdo xisbiga dalkan ka dhigi kara wadan casri ah modern state oo sharcigu wax kasta ka sareeyo oo dadku u simeeyeen iyo eegin xaw ku nool yahay qabiilkiisa khayrkiisa iyo resource ay u simeeyeen waxaanu aad iyo aad dadka kale intellectualska ambaha jireen asxaabta kale ku jireen danaha gaarka qabto waxaan ku soo dhaweynaa xisbigan inuu noqdo xisbiga aqoonta xisbiga future-ka xisbiga badbaadada xisbiga cadaaladda xisbiga mideynta inuu noqdo ayaanu jecelahay waxa dalkan maanta curiyaan waxa way aqoon darro ayaa weeye wadanka haddaan aqoontu hoogina saymakayna hogayaan dadka aan cilmiga lahayn cawaamadaha qaatay waxay doonaan ku hadlayaan qaranimada iyo kala garaneyn shakhsiga ayaa wadanka inuu hormood inoo noqon doona marka waxaan ku soo dhaweynaa aan ugu baaqinaa dadka reer Soomaaliland ee wax garadka ah inay ku soo deedaan Professor Abiyan baa isna jooga Professor Axmed Weli baa isna ku soo biiray oo xaggan iga xiga waxaan jeclahay aqoontu ay gashaa asxaabta gashaa aanu galin yani dadka taariiruhu caruurtooda dhaqabay magaalada dibadda ka yimaadeen waxbana garaneyn inay hor ordaan maaha inay cuqaashina hor ordaan maaha ina magaranaysaa maxaan maanta cunaa maxaan ku qaylaa qof ay tahay aragtidiisu inuu dalka microphone qabsada maaha dadka cudurkooda rida maaha marka aad iyo aad baan ugu fasaxnahay waa dadka oran jirnay salaad shukri waan ku tukanaa markayna soo galaan qaarna waan ku tukanaa markay naga baxaan marka insha Allah ta'ala waxaan ka baranay inuu bilow khayr noo noqdo aqoontu noo timaadaan jecel insha Allah ta'ala salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Soomaali Cabdi Axmed Karinle Carlson TV gudaha magaalada Hargeysa.